galab kasta halkan ayay yimaadaan si u bartaan ciyaaraha kala duwan ee hidaha iyo dhaqanka Soomaalida. waxay ka mid yihiin 6 kooxood oo tababar ciyaar dhaqameedka ku barta xarunta dhaqanka ee magaalada Hargeysa. Hamigoodu waa inay kor u qaadaan ciyaaraha kala duwan ee Soomaalidu caanka ku tahay sida uu sheegay Sayid Cali oo ah tababaraha ama horjoogaha kooxdan. kooxdana wiciga waxa la yiraahdaa halkan academy waa koox hidiga dhaqana oo dhalinyaro ah oo isku timiday ujeedada ama mowqifka laga leeyahay waxa weeyaan dhaqankeena Soomaaliyeed in dib loo soo nooleeyo oo aanu noqon mar liiba waxa laga tago tabarka marka mowqifka ama ujeedada ugu weyn ee aan isku yimaanay ee aan u tababarno aan ciyaarno waxa weeyaan sidii aan dhaqankayga u soo nooleeynayn kulli ciyaaraha Soomaalidu badan yihiin qaar badan oo aan ciyaarno Saylicigi iyo Jaandeerti iyo Jibcadaaliya way isku wada jiraan kooxdan oo kamid ah 6 kooxood oo halkan ku ciyaara ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka hadda waxay ciyaarayaan mid kamid ah ciyaaraha ugu caansan Soomaalida oo ah ciyaarta Sayliciga waxay ka kooban yihiin hablo iyo inamo dhalinyaro ah xarunta aanu joognaana waa xarunta hidaha iyo dhaqanka ee magaalada Hargeysa. ardayda tababarka qaadanaysa way ku faraxsan yihiin in mar walba ay ciyaaraan ciyaar dhaqameedka. wallahi farxadeeda waxaan ku soo koobi karaa ma garanayo markaan ciyaarayo hidaha iyo dhaqanka. waxa jira caqabado marka qaarkood soo wajaha xubnaha kooxda iyo kooxaha kale ee la midka ah. markaad goob isku timaado amba adigu adoon dawlad ku caawineen aad hanti isku maalgelisaad guri kalistaan baa xafiis aad furto in xafiiska laga karin waayo oo laga dhalinyar baatiin in guriga laga karin waayo oo lagu raayay inama hablaha isku imanayo fasaad bay ka wadaan in dadka qaar yiraahdaan waxaan dhaqanku waxtay soconaya maaha marka caqabad u weyn bulshada ay naga timaada waxay ku oranayaan maxay ka barataa maxay ka doonaan kuriyaha iyo hablo markay isku yimaadaan dadku waxay ka aaminsan horta in wax kala sameynayaan si anagu horta inamadayada iyo hadaan nahay anagu hablahayaga inamadayada wala wax fiican ma inuu xumaanba kala ma kulano bulshada kala daaflagaado waan kala kulanaha. wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta waxay u arkaan inay gabtay door muhiim ah oo ah inay dhiirigeliso dhalinyarada dhaqanka xiiseeya. wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta waa xubinta kaliya ee dhaqanka kor soo qaadi kartaa ama soo nooleyn kartaa balse laakiin wax garab ah oo aan maanta tilmaamo oo aan tilmaam cad ka hayo ma jirto waxaan nagu garab taagnaa ciyaaruhuna ma aha wax la dhiido laakiin ciyaar walba macna iyo waxay ku dheehan tahay haasaawo iyo magar farshaxan dheeraada ayaa ku jira waana wax laga baran karo waana qayb suugaanta kamid ah ciyaaruhu marka sida suugaanta kale heesaha loo dhiirigelinayo waxa jira dhaqanka in loo dhiirigeliyo marka wasaaradda iyo wasiirka iyo madaxweynaha waxaan ka codsan lahaa in dhaqanka la dhiirigeliyo oo meel lagu tiiriyo oo loo sameeyo goobo iyo hoy ay ku ciyaaraan runtii lagana faa'iideysto ciyaaraha muhiimadda ay leeyihiin iyo ciyaaruhu waxa laga baranayo. Xasan Suleymaan Haruun Xasan Galayd telefishinka Home Cable magaalada Hargeysa.